madaxda xisbiga kulmiye gobolka Awdal oo kulan ku qabtay xafiiskooda ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga kulmiye dadweynaha ku nool gobolka Awdal inay isku diyaariyaan soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna kusimaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland yooftu hogaaminayo oo uu kamid yahay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee Soomaaliland oo barito safar shaqo ku iman doona gobolka Awdal waxayna madaxda xisbiga kulmiye heer gobol iyo heer degmo ay bulshada reer Awdal ku wargelinayaan in waftiga si heerka sare ah uu horkacayo kusimaha madaxweynaha inay si miisaan leh loogu muujinayo taageeraha iyo xuduudda uu ku leeyahay gobolka Awdal in si qiimo qadarin leh dadaal loogu galo soo dhaweynta waftigaasi culus ee Boorama iman doona hadii la yiraahdo mas'uuliyiinta arrimahaas ka hadlaya waxa hadaladoodii kamid ahaa ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna kusimaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo murashaxa xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha mustaqbalka dhow iyo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaanu soo dhaweynaynaa waxaanu ku codsanaynaa taageerayaasha xisbiga kulmiye dhammaantood meel ay joogaan in ay ka soo qayb galaan soo dhaweynta waxa kale ka digaynaa xisbiga mucaaradka ee wadani uga digaynaa in soo dhaweyntaasi ay la yimaadaan arbush waxaanu leenahay nabadgelyada hal la ilaaliyo waayo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka ee imanaya iyo madaxweyne murashaxa madaxweyne ee imanaya waa xisbiga kulmiye Axmed Yaasiinna waa midhay xisbiga waxaanu markaa faraynaa nuu sheegaynaa oo aanu gaarsiinaynaa inay ilaaliyaan borotokoolka axsaabta iyo nidaamka ay leedahay Axmed Yaasiin Sheekh Cali ayaa la waanin xisbiga kulmiye ka tirsan ma aqbali doono cid wadaniya oo nugula gorgonto oo sawirkana la gasho meesha timaada waanu ka digayaa waxaan dadka reer Boorama waxaan leeyahay soo dhaweynta si mug leh aynu uga qayb qaadano qabanqaabada iyo hagaajinta iyo maaragta dardargelintana waxa iska leh waxa iska leh heer gobol xisbiga kulmiye waxaan si uga digaynaa xisbiga bila cadaalad ee wadani ee 100 jeer ku soo jabay mooshinadiisa iyo hawlihiisa 100 jeer ku soo jabay isagoo daacad ka hayno marka horeba qalbigiisa uu yahay kala qoqob iyo kala leexleexis uu yahay waftiga ballaaran uu hogaaminayo mudane madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna musharaxa kusimaha madaxweynaha ana musharaxa xisbiga musharaxa madaxweyne ku-xigeenka xisbiga kulmiye ee Muuse Biixi Cabdi iyo Axmed Yaasiin oo isna xubin aad iyo aad gobolku muhiim uga oo taageerayaasha oo dhan ay u diyaar u yihiin dhammaantood ba waanu soo dhaweynaynaa mar hore iyo mar dambe waan soo dhaweynaynaa waxaan ugu soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaan ugu soo dhaweynaynaa qalbi furan waxaan u sheegaynaa taageerayaasheeda inay soo baxaan wadani waxaan leeyahay Axmed Yaasiin Sheekh Cali yaalo waa nin kulmiya waxa halka keenay baaskeenay waa kulmiye guul aan lahayn yaan lagu faanin marka gobolada galbeedka la yiraahdo annagu ka xisbi ahaan iyo ka shacbi ahaanba aad baan u soo dhaweynaynaa aad baan ugu faraxsanahay guulaha u soo hoyday haday xukuumadda tahay aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa bulshadana waxa leeyahay bari waxa ay maraya waftiga ballaaran ee uu hogaaminayo madaxweynaheena ahna kusimaha madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici iyo musharaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi iyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Axmed Yaasiin Sheekh Cali Anyaale waxa leeyahay xisbiga kulmiye waa xisbigii soo saaray Axmed Yaasiin Sheekh Cali Anyaale kursiga ku saaray waxaan leeyahay axsaabta mucaaradka adeer waa la kala leeyahay shaqada haddaad leedihiin Axmed Yaasiin Sheekh Cali Anyaale soo dhaweynaynaa deesha Axmed Yaasiin Sheekh Cali Anyaale waxa soo dhaweynaya xisbigii uu ka tirsanaa ee isaga dhalay ayaa soo dhaweynaya waxa soo socda wafti ballaaran uu hogaaminayo madaxweyne ku-xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ahna kusimaha madaxweyne ee Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane injineer Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Saylici oo ka mid yahay oo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ahna murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye waxa kale oo ka mid ah waftiga ballaaran gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Axmed Yaasiin Sheekh Cali Anyaale marka waa wafti ballaaran weeye waftigaas waxa hogaaminaya madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye ee gobolka Awdal gaar ahaan degmada Boorama waxaan ugu baaqaynaa inay si mug leh oo miisaan leh ay uga qayb galaan soo dhaweynta madaxweyne ku-xigeenka ahna kusimaha madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan baaq u diraynaa dhammaan taageerayaasha xisbiga kulmiye inay si mug leh oo baaxad leh ay u soo dhaweeyaan Cadar Caafi TV qaranka Boorama.